maxaad ka taqaanaa lamaanihii ugu horreeyay ee ku kala taga lacag ee ka shaqeeyeen aaladda TikTok? haddaba maxaa keenay furiinka lamaanahani? maxay tahay sababta ay ugu heshii waayeen lacagtani? imise ay la eg tahay lacagta sababta in la isku fura? si aad wax badan ula socoto waxaan kaa codsanayaa muuqaalka leeg saar oo sheer garee saaxiibada, sidoo kalena saaxiib igula noqo bartayda Facebook ee Cabdicasiis Xalliye. Amiire iyo Aadan lamaanaha aan kala dhicin, la ogaa in muuqaalo fara badan ay isla soo duubi jireen si wada jira, balse waxaa xusid mudan in aaladaha ay ku soo duubi jireen ay ku qornayd magaca Amiira balse aysan ku qornayn magaca Aadan, taasi oo sababtay in Amiiro ay diido lacagta TikTok-ga ay tiraahdo ciwaanka aniga ayaa lahaa waxaan ku siiya qaado. Aadan ayaa diiday in la siiyo $5,000 kadib markii Amiira iyo Aadan ciyaar ay la ciyaarayeen wiil Etoobiyaan ay ka heleen saacad gudahood $30,000. Aadan ayaa iska diiday $5,000, $25,000 waxaa rabtay inay qaadato Amiira, balse $5,000 xataa waa uu waayay wiilkani. maxkamad ayay isla tiigsadeen Aadan, balse waxa loo sheegay inuusan wax shuqul iyo shaqo uusan ku lahayn ciwaanadani ay ku qoran yihiin magaca Amiira balse aysan ku qornayn magaca Aadan. hadda waa ay kala tageen, hadda waa lacag $30,000 ayaa lagu kala tagay. haddaba maxay tahay sababta ku kaliftay lamaanahani in ay ku kala tagaan lacag ayagoo nafta ay ka dhaxaysay? waxaa soo baxaya xogo badan. Aadan ayaa ku sigtay in la maxkamadeeyo kadib markii isku dayay in uu dilo gabadhani, balse waxaa loo sheegay in xabsiga la dhigi doono haddii isku dayo faldambiye dil ah. Aadan ayaa uga carooday kadib markii uu sheegay in xaaskiisa uusan ka filaynin inay gadaal ka tooganayso, balse Amiira ayaa u muuqatay habdhaqankeeda mid wax damacsaneed. adeega iyo habdhaqanka ay kula dhaqmaysa xaajigeeda aawadiis ayay dadku badan ku falanqayn jireen in Amiira ay tahay dadka haddii ay lacag arkaan aysan waxba aqoonin, lacagtana ay wax walba kala weyn tahay. Amiira ayaa hadda $30,000 ku weyday xaajigeedii Aadan ay wax walba ka samaysanaysay. haddaba ma isleedahay adigu Amiira waa ay heli kartaa beddelka Aadan ay wixii rabta ka samaysanaysay? haddaba yaa kula qaldan labadani lamaane ay ku kala tagay $30,000? haddaba daawade, aragtidaada waxaa ka dhiiban kartaa ciwaan aad adigu leedahay lamaantaada ama lamaankaaga ma uga diidi lahayd lacag aad si wada jira muuqaal uga soo muuqateen? qaybta hoose ee commentiga waa kuu furan tahay. haddii aad ku cusub tahay page-keena Cabdicasiis Xalliye follow dheh, muuqaalkan leeg saar oo sheer garee saaxiibada oo la sii wadaag. mahadsanid.